هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله؟ بسم الله بينك أنت على رسول الله. marka lagu soo dhawaada xalaqadeeni 11aad ee barnaamijkani tababarka nolosha guurka, waxaanu ka hadlaynay goosgooska ka hor ciwaanka xalaqada oo ahay heshiiska ama nikaaxa, caqdiga ama meherka. waxa aan ka sheekeynay ugu horeysa waxay ahayd istiqaarada. waxaanu sheegnay in istiqaarada sharciga ay tahay xadiiska can Jaabir bin Abdullah radiyallahu anhu oo wariyay istiqaarada sharciga ah. hadda walaalayaal waxa jirto qaabab istiqaarada kamid ah oo dadku ku dhaqaaqaan oo wax xariir ay leedahay maxaa la dhahay sharciga aan jirin. kitaabka loo furaya, kitaabka la soo qabanaya oo la furaa. tusaalahan waxa leeyahay maxaa rabtaa, wallahi waxa imaaday wiil isoo doontay oo raba inuu guursado, magaciisa waxa la Maxamed, anigana magacayga Sucaada lahaa. gabadhii sheekhi ama qofka kitaabka furana bismillaahir rahmaanir rahiim wuxuu leeyahay ilaahayow Maxamed wuxuu rabaa inuu guursado Sucaad, hadii ay khayr tahay maxaa la u fududay. kadib kitaabka la furaa, dhac kitaabka markii la furo waxa la akhrinaa safxadda ugu horeyso aayada ka soo baxdo. hadii aayadu tahay aayad naciim iyo janno iyo wax wanaagsan ka hadlay, kadib waxa leedahay waa mumtaaz, arooskan waa wanaagsan yahay. hadii aayadu tahay aayad niiraan iyo jaxiim iyo naar iyo ka sheekeynaysa, waxa leedahay a'uudu billaah isku aadin ninkan guursanina. istiqaaradaas maaha mid sharci ah, wax ka galay oo xariir ah ee la leedahay diinta ma jirto. waa wax khalad ah oo dadku sameeyaan. waxay sameeyaan shimbir bay soo qabanayaan, waxay ku leeyihiin maxaa rabtaa inaad sameysid, waxaa rabnaa inaad guursatid heblaayo. haddii shimbirkan uu u duulo dhankaas bidix maxaa la dhahay ma guursanaysid gabadhan, haddii dhankaas midig u duulana waa guursanaysaa. wax ka galay sharciga shimbirkaas dhinaca u duulaya iyo dhinaca u duulaya ma jirto. taasna waxay ahayd caado mushrikiintu awal ay sameyn jireen. mushrikiinta awal waxay sameyn jireen islaamka ka hor, midkood hadduu rabo inuu safar aado amaba inuu guursado ama uu wax gato ama wax iska gado, gurigiisa ayuu subaxii kasoo bixi jiray. kadib wuxuu soo qaadan jiray dhagax ayuu dhulka kasoo qaadi jiray. kadib haddii uu arko maxaa la dhahay shimbir duulaya hawada, uu ku dhufan jiray dhagax. kadib markuu ku dhufto dhagaxa, haddii shimbirku u duulo dhanka bidix wuxuu leeyahay maxaa la dhahay amarka ma fudud ma la sameynayo. haddii dhanka midig uu u duulana wuxuu leeyahay waa amar wanaagsan, waa lagu dhaqaaqaa. waxaas wax sharci oo jira maahan. dayaradaas waa wax mushrikiintu awal ay sameyn jireen. bahashan maxaa la shimbirka midig ama bidix oo aadayo wax kama gelin cilaaqa istiqaarada sharciga ee jirto. taasna waa istiqaaro kale oo xariir la leeyahay sharciga oo ayadana jirto oo la sameeyo. sidoo kale waxaa jirta mid kale oo saddexaad ayadana aan sharciga xariir la leeyahay oo la sameeyo. waxa la adiga magaca wiilka guursanaya la magaca Khalid, magaca hooyada magaceed Xaliima heblaayo oo leeyahay. kadib wuxuu leeyahay gabadha aad guursanaysid magaceed heblaayo. kadib waxa la qabanaa magacyo la qoraa, magaca hooyadiisa iyo magaciisa iyo magaca gabadha iyo magaca gabadha hooyadeed iyo wixii la isku daraa. kadib waxa la isku daraa, waxa la kala jaraa, waxa la isku dhufanaa, waxa maxaa la isku qaybinaa. kadib wuxuu leeyahay wallahi ma lihidiin maxaa la isqa qabsi lambareed oo maxaa la ishaleel lambareed oo adinka idin dhaxeeyo. wax qalada waaye, sharci maahan. lambarka iyo waxyaabaha ishaleelayaan wax kama gelin istiqaarada sharciga ah. istiqaaradaas walaalayaal diinta kuma jirto. wax diinta ka galay oo meel ay diinta ka soo kasho ma jirto. dadka qaar waxay aqriyaan burjiga, waxa loo leeyahay burjigeeda iyo burjigaaga way isla leeyihiin, maxaa la isas guurso, maxaa la qoftan way ka burji sareysaa ha guursanin. sida darteed laga yaabaa in guur lagu dhiso maxaa la burji waxyaabo la mid ah. waxaasna walaalayaal wax ka galay ma jirto. nabigiisa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu yiri man ataa arrafan aw kaahinan fasaddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu salatu rabbi wa salaamu alayhi. marka qofka u tago maxaa la kaahin iyo arraf wuxuu kadibna rumaysto wixii uu sheego, wuxuu ku kufriyay wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi Muhammad uu ku soo dejiyay. marka waxa jirto ayada istiqaaro kale oo ayadana dhacdo, maxaa la dhahay indhahaaga la fiirinayo waxa lagu leeyahay maxaa rabtaa gabadhaas inaad guursado heblaayo. haa indhahaaga laga fiiro waxa lagu leeyahay heblaayo ma fiicna ma ku qalan.
indhaha lagaa fira waxa lagu leeyahay ha heblaayo waa xun tahay guursan, heblaayo waa fiican tahay guurso. yaa kuu sheegay adiga maxaa la inay fiican tahay in kale see ku ogaatay? hadda istiqaarada sharciga ee saxda ah waad barateen, waadna taqaanaan, ayada adeegsada. idaa midkiin hadduu amar hamiyo ha tukado 2 ragcadood kadibna ducadaas ha akhriyo. amarkaasna kadib ilaahi subxaana watacaala isaga ayaa kuu fududeynaya ama culays kaa saaraya. haddii amarkaas yahay mid ku xunna ilaahi subxana watacaala waa kaa leexin doonaa insha allahu tacaala. waa taasaa waxa ku xiriiro istiqaarada sheeko hordhac ah oo caqdiga ka hor aan ka sheekeynayna. haddana waxaa jiro shay kaleeto oo waqtiga ku xiran asagana. dadka qaar waxay dhahaan ha guursanin maxaa la labada ciid dhexdooda. haddaad guursato labada ciid dhexdooda balaayaa ku dhacaysa, saasa ka dhacay. islaamku wax maxaa la maalmo hebel iyo maalmo kaleeta oo kala tirsanaya, maalmaha kale ka xun iyo maalmaha kale ka fiican ma qabo. maalinta maxaa la isniinta fiican, maalinta khamiista fiican, jimcaha fiican, waxaas ma jiraan. maalin kasta aad guursan kartaa, waqti allaale iyo waqti kastaaba guursan kartaa oo dirabti. bal waxaaba dhacday sayidata caaisha radiyallahu canha waxay dhahday rasuulka sallallahu alayhi wasallam maxaa la wuxuu caqdigii heshiiskeeni guur ka dhacay shawaal, kadibna rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu iisoo aqal galay maxaa la shawaal. caaisha radiyallahu canha waxay jeclayd inay gabdhaha aqal geyso maxaa la bisha shawaal. shawaalna waa bisha u dhaxaysa labada ciid, si ayadoo ku dayanaysa rasuulka salaatu rabbi wasalaamu calayh. shawaalna waxay u dhaxaysaa labada ciid, ciid al-adxaa iyo ciid al-fitri. taas walaalayaal waa mid maxaa la kuwani waa hordhacayaal aan uga sheekeynayna caqdiga heshiiska. hadda waxaan si gudaha u gali doonaa caqdiga. caqdiga waxa anaga aanu dhahno meher ama maxaa la nikaax sida aan u naqaano wuxuu leeyahay arkaan 5 ah dhanka sadati shaaficiya. qofkii raba inuu guursado maxaa la rabo inuu guursado wuxuu noqon karaa maxaa la zawj markii ay dhacdo 5 ragno kadib as-siiqatu waz-zawjan wash-shaahidan wal-wali. as-siiqatu siiqadi zawjani rajul wa imra'a nin iyo naag iyo shaahidani marqaatigi iyo waligi. siiqada ama siiqatu siiqada waxay tahay siiqada caqdiga in aad wiilka maxaa la aabaha gabadhaas aad ku tiraadid iyo guri gabadhaada oo kugu yiraahdo waa kugu guriyay gabadheeda, ama aad ku dhahdid ankixni ibnataka gabadhaada igu meheri oo kugu yiraahdo asna waa kugu meheri, amaba siyaabo lamid ah. hadda xitaa waxaa jirto siyaabo kaleeto ayadana dhacdo, hadallo waxaa jira loo adeegsado siiqadaas. tusaalahaan oo kaleeto waxaad ku leedahay gabadha aad gursanaysa aabaheed zawijni ibnataka calى kitaabi اllahi wa sunati rasuuli اllahi wacalى mehrin miqdaaruhu kada bishahaadati اllahi wاlxaadiriin. hadalkaas aad dhehaysid micnaheedu maxaa waaye? gabadheeda igu mehri kitaabka ilaahi subxana wa tacaala iyo sunnadii rasuulkeeda. yacni waxaa waaye in aad ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnadii rasuulka a gurigeyga ku xukumaayo, ina caqdigeyga iyo heshiiskaas ku xukumaayo sunnadii rasuulka iyo kitaabka ilaahi subxana wa tacaala. haddaan isjeclaano, haddaan isdagaalno, haddaan isqabanno, haddaan maxaa la dhahaa raali isku noqono, haddii culays oo dhaco ama haddii uu fudad dhaco, markasta ani gabadhaada waxaa ku guursaday kitaabka ilaahi iyo sunnada rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. gabadhaan saas micnaheedu waxaa waaye adinaada gabadhan ku guursan hawadaada, waxa adi naftaada rabto iyo waxa naftaada ay nacayso. gabadhaan maada ku guursan hawadaada, gabadhaan waxaa ku guursatay kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala iyo sunnada rasuulka sal ly slam. markaad mehersanaysana saasaad tiraahda. haddii kale hadalka aad saas dhehaysa haddaad ogeen ka fir. waxaa laga yaabaa markaad weydiisid wiil aadhaadi kitaabka ilaahi maxaa laga helaa dhanka guurka iyo maxaa lahay iyo sunnada rasuulka sal ly slam xaalo zawaaj, wuxuu ku leeyahay wallahi ma aqaani. gabarba waxaa ku leedahay kitaabka ilaahi maxaa laha dhanka zawaajka muxuu ka leeyahay ma taqaanaa, markaas wuxuu ku leeyahay ma aqaani, ku leeyahay ma aqaani. taas walaalayaal waa gaabin in wiil maxaa la uusan aqoonin waajibaadka dhanka guurka looga leeyahay ee xaaskiisa ku leedahay, ilmihiisa ku leeyihiin waajibka lagu leeyahay. gabar inaysan aqoonin waajibka lagu leeyahay. waxaa dhacday mar in wiil maxaa la dhahay sheekh usoo gar doontay, sheekh baa ka sheekeynayay, wuxuu yidhi sheekhi wiil baa iisoo gar doontay gabadh uu qabay asaga dhibka dhex dhacay. kadib wuu la soo xariiray wiilkii. sheekh wuxuu yidhi markuu isoo wacay waxaa ku dhahay inta aanan garta aadin adiga ma ajiibaysaa oo ma aqbalaysaa amarkeyga haddii ani aan ku amro. tusaalahaan oo kale haddii qof imaado gar goynaayo, haddii garta goy waa inaad garta qaadanaysid markaas inta uusan qofka kuu imaano waqtiga ka lumin, dadka kale waqtigiisa ka lumin, adina waqtigaa kaa lumin, ma qaadanaysaa garta. wiilki wuxuu yidhi maxaa xukumaysaa? sheekh wuxuu yidhi waxa aniga xukumaya waxa ilaahi subxaana wa tacaala uu yidhi rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. wuxuu yidhi wiilkii idheh hadda wixii rasuulka uu leeyahay, waxa ilaahay leeyahay
wuxuu rabaa inuu ogaado haddii waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay iyo rasuulka sal slam ee ay waafaqsan yihiin waxa uu rabo inuu yeelo, haddii uusan waafaqsanayna inuusan yeelin wax kama gelin. wallaahi ikhwaani inta aanan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sharciga islaamka aanan guryeyn iyo meel kasta geenin dhibaatooyin baana qabsanaya. mataqaanin ma aragtan waxyaabaha ka dhacayo caalamul islaami iyo dhibaatooyinka guryaha islaamka ka jiro. dhibka ugu weynuu jira wuxuu yahay inta badan sharciga islaamkii ma heno maxaa lahay heshiiska iyo nabadda maxaa lahay waxaa ku qaadanaynaa maxaa lahay kitaabka ilaahay isku meersanaynaa nabadda iyo markay jirto. markii maxaa lahay kala taga iyo dhibaatada jirtana kitaabka ilaahay meel kalaa la iska dhigaya. markii gabar haddaad ku dhahdid maxaa lahay ninkan ha dhibin maxaa lahay dhibka ka dhaaf wuxuu ku leeyahay waxaa ku fadaxeenayaa dadka. wuxuu ku leeyahay maxaa lahay markaa ku dhahdid ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay imsaakun bimacruuf aw tasriixun biixsaan. wuxuu ku leedahay maya si nabada ku kala tagi mayna kan kitaabka ilaahay halkaas dhig halkaas naga dhig. kitaabka ilaahay markaan halkaas iska dhignay waxaa nagu dhacay wixii nagu dhacay ee guryaheena islaamka ku dhacay waxaana gaaray wixii na gaaray ee ahaa ciqaabta ilaahay subxaana wa tacaala oo uu nagu salliday cadowga ilaahay guryihii muslimiinta ku salladay. walaalayaal inta aanaanu sharciga ilaahay guryaheena kasoo gelinayno guryaheena ka gelinayno oo ka gelinayno macaamulaadkeena iyo habdhaqanadeena aan ka gelinayno maxkamadaheena aan ka gelinayno masaajiddeena afartaas intaas gaabin ayaan ka nahay amarka ilaahay. masaajidka guriga shaqada iyo macmalka iyo maxkamadda waa kaasaa sharciga. haddii ilaahay amarkiisa uu galo afartaas meel markaas ayaa noqonaynaa kuwo muslimiin sax oo xaqiiqiyina oo ilaahay raali geliyay. haddii kaleeto gaabin ayaa nugu jirto islaamnimadeenana gaabin ayaa ka jirto. ilaa hadda kama maarno inaan dhamaystirno maxaa lahay sheekada ku saabsaneed caqdiga. waxaanu dhamaystiri doonaa xalaqada soo socoto ee dowra taahiliya lilxayaati zawjiya waanu kulmi doonaa insha allahu tacaala. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.